Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Maalin hore waxaan tilmaamay in muhiim ay tahay in la fahmo habraaca doorashooyinka. Sidaa idin sheegana runtii waa laga xumaaday. Laakiin yaa ka xumaanayo dadkii aan tilmaamay oo aan iri ma jeclo maxaa la yirahdaa habraaca doorashooyinka in la dhaqan geliyo. Marka habraaca waxaad ka fahmayey hanaankii loogu talagalay inay doorashooyinku shaqeeyaan. Waxaad ka fahmaysaa waajibaadka shaqo ee guddiga maamulaya doorashooyinka, waajibaadka saaran, iyo beesha kursiga ku fadhida ee doorashada loo qabanayo. Waajibaadka waxa ugu muhiimsan khaasatan guddiga doorashooyinka maamulaya waajibaadkiisa waxa ugu muhiimsan inay hubiyaan guddiyada xulista ergooyinka inay hubiyaan. Guddiga xulista ergooyinka waxaa laga wadaa qeyb ka mid ah odayaasha iyo qeyb matalayso bulshada rayidka oo soo xulayo ergooyinka codbixin lahaa, kuwaas in la hubiyo, iyo murashaxiinta oo kuraas u tartamaysa ayakana in la hubiyo. Tan waajibaadka saaran tan ugu muhiimsan kuwaasa ka mid ah. Marka habraacyadu ku qoran tahay, habraacyada muhiim waay in la fahmo. Habraacyada idinkaga hadlin laba qolo habraaca diidan iyo qolooyin kale habraaca wuxuu yahay aan fahansanin oo ayakaba tooda haysatayo ba iyo ta ma ah. Beenaa loo sheega, waxaa laleeyahay bax soo hadal, adiga hadal yaqaan, hadalna ma kasayaan. Dad la iska bartay lagu dheleelay xataa lacagtooda laga dhacayo. Dad la iska dhacayo maxaa waye oo markas lacagta laga qaadanayo. Kaas camal safiih la sheegay, kaas camal waay. Quraankana uu ku qoran tahay walaa tu'tu sufahaa amwaalakum, maalkiina ha ku aaminina sufahada. Maalkiina ha ku aaminina sufahada. Sufahada yaa waay qofka oo gacantiisa si sahlan looga bixin karo maalka, laga dhici karo, la khiyaani karo. Mafahanti? Saas oo kale dadka xataa maalka ku bixinayo meelaha qaldan oo fataalka quraanka wuu diiday, kuwaas xataa wuu diiday quraanka. walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin wa kaana ashaytaanu lirabbihi kafuura. Marka qolooyin noocaas oo kale inta lasoo adeegsadaa jiro oo ba ita aan ahayn, waxba aan fahansaneyn, waxba aan aqoonin. Mafahantay? Mar walba baraha bulshada taagan yihiin, doorashooyinkay ka hadlayaan. Maxaa la dhahaa luqanta waxaa loo gelinaa wax aysan ka bixi karin. Mafahantay? Waa sahligayaan hadhoodina waa sahligayaan. walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. Ilaahi subxaana wa tacaala uu kaaga digay. Marka waxa waaye hala tixgeliyo oo kusoo celina, hala tixgeliyo dadka khaasatan xiiseynayo doorashooyinka in habraacyadaas indhaha la mariyo. Kulli meeshay ku qoran yihiin. Heshiisyadii lasoo galay iyo habraacii lagu heshiiyey kulli meeshaad ka heleysaa. Se u shaqeynayaan muhiim waaye. qof kasta oo doorashada khuseyso, qof kasta doorashooyinka xiiseynayo
inuu maaragtay indhaha mariyo aad iyo aad ay muhiim u tahay. laakiin yacni waxaan aan aware ka nahay oo aan maaragtay ka feejigan nahay, walwalna aan ka qabnaa, walaac ka qabnaa in maaragta habraacyadaas ay noqdaan xibr al awraaq, yacni just words on papers inay noqdaan, hadal oo waraaqle ku qoran inay noqdaan. walwal aan ka qabnaa, yacni oo hadhoodii maaragtay la dhaqangelin waayo. marka qaabaa jiro oo la rabo in wax loo musuq maasuqo. doorashooyinka musuq maasuqa looga baqaa, qaabaa jiro maaragtay wax la rabo in wax loo musuq maasuqo. qaabkaas waxaa ka mid ah matalan in beesha kursiga ku fadhiso yacni aan loo ogolaanin inay soo gasho goobta codbixinta ama xarunta codbixinta in laga hor istaaga gelitaankiisa. taas waa jirtaa. goobta hadhowd waxaa loo furaa ergo maaragta aan matelin beesha kursiga ku fadhida, erga aan matelina goobta hadhowd loo furaa. yacni qeybaha maaragta musuq maasuqa oo meesha hadhowdi la keeni karo ay ka mid tahay. marka waxaa jiro qeybo ayaa jiro oo korjoogayaasha ka mid ah oo ay ka mid yihiin maaragtay guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa. wax walba maaragtay oo ay arkaan oo ku saabsan isdabamarin inay maaragtay kashifaan. maaragtay inay kashifaan si doorashadaas ay u nabad gasho, oo doorashadaas ay u dhacdo si maaragtay oo dhexdhexaad ah, si hufan oo maaragtay xor iyo xalaal ah. marka habraacyadaas muhiim waaye. indhaha la mariyo, hala akhriyo, yaan layska indhatirin, yaysan idinkan lijibinin dadaan waxba akhrinin, wax akhriska aan jeclayn, qalinkii iyo buugga dhibaayo, warqadii qalin aan arki karin dhibaayo, fahanti, iyo niyadda idinka dilin. waxaa la akhriyo insha allah, hana la dadaalo insha allah. baarak allahu fiikum, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.